boqortooyadii Ajuuraan ee ka talisay dhulka Soomaalida bilowgii qarnigii 13aad ilaa iyo qarnigii 17aad ayaa ahayd boqortooyo isku darsatay hodannimo dhuleed iyo kheyraad bad iyo bariba leh. Ajuuraan oo caan ku ahayd martigelinta iyo isku xirka ganacsiyada waqooyi bariga iyo bariga dhexe ee adduunka ayaa ka talinaysay dhul ballaaran oo u dhaxeeya Raskamboni ilaa Hobyo iyada oo dhanka galbeedna gaartay ilaa Qalaafaha gobolka Ogaadeniya ee Soomaali galbeed. Ajuuraan oo ilbax ku ahayd xiriirada boqortooyooyinka ayaa la sheegaa in xiriiradeedu gaareen indhayarta China, dhulka Beershiyaanka, kii Roomaanka, Hindidii Asia, Ismaaniyiintii Turkida iyo Carabtii bariga dhexe, iyada oo la tilmaamo inay iyagu ahaayeen Afrikaankii ugu horreeyay ee xiriir la sameeyay qaar ka mid ah boqortooyooyinkaasi. Xukunka Islaamiga ee ka faa'iideysiga biyaha badda iyo safaradii ganacsi oo keenay horumarka ballaaran ee boqortooyada ayaa dhaxalsiiyay barwaaqo sooran iyo amniba dadkii xukunkeeda hoos imaanayay, iyada oo martigelisay taariikhyahanadii ugu weynaa barigaas sida ninkii lagu magacaabi jiray Vasco da Gama, Duarte Barbosa iyo dhulmareenkii weynaa ee muslimka ahaa ee Abdullaahi Muhammad ibn Battuta, iyagoo intaba ku xusay kitaabtoodii maamulkii, hantidii, deeqsinimadii, ammaankii, awoodii iyo wax soo saarkii boqortooyada Ajuuraan. Dagaaladii ugu caansanaa ee boqortooyada Ajuuraan kasha waxaa ka mid ahaa dagaalkii Boortaqiiska. Boqortooyadii Boortaqiis ee ahayd mid ka mid ah boqortooyooyinka ugu tunka weyn boqortooyooyinkii adduunka oo dhanka bari ee badda ka soo weerartay Ajuuraan ayaa weeraro culus ka soo qaaday xeebaha Ajuuraan gaar ahaan Makka, halkaas oo Ajuuraan oo kaashanaysa boqortooyadii Cusmaaniyiinta ay ku jabiyeen kiristaankii soo doolala tagay. Sidoo kale Ajuuraan ayaa la gashay oramada dagaal ku caanbaxay magaca dagaalkii Galmadow, halkaas oo oramo doonaysay dhul ballaarsi iyo hantida dhulka xeebaha iyo beeraha ah ee boqortooyada Soomaalida. Ajuuraan ayaa jabisay oramadii iyada oo diintii suubaneed ee Islaamkana gaarsiisay dadkii ay qafaalatay. Xukunkii adkaa iyo canshuurtii xoogganada ee boqortooyadu ka qaadi jirtay dadkeeda ayaa sabab u noqotay kala yaaca iyo abuuranka maamulo ka soo horjeeda xukunka Ajuuraan ilaa ugu dambeyn boqortooyadii ballaarneed ee Ajuuraan ay u kala jabtay boqortooyooyin yaryar, saasna uu ku istaagay xukunkeedii 500 sano jirsaday.